Assalaamu calaykum soo dhawaada mar kale ee idiin soo duubay xaafadda calanley codsigii noo batay awgiis haatan waxaan maraynaa beerta xurriyadda mise beerta beenta dhabarkeeda ayaan maraynaa anigii gabar abaayadeeda ayaan isla soconno maasha Allah marka xaafadahana u jeediin guryahan waa guryihii waagii nabadda la dhisay carabta iyo hindida ay deganaan jireen marka haddii aad rabtid inaad wax badan ka ogaatid xaafadan oo wax badan lagugu wareeriyay oo hadalhaynteeda zaid kugu noqotay fadlan waa kaas iska baro ama iska daawo sida wax badan ugu fahmi lahayd marka maasha Allah hadii soo dhawaada videogan dhameysta insha Allah sida u jeedaan xaafadan waagi horeeto waxa deganaan jireen guryahan qadiimi waaye waagi nabad ayaa la dhisay hindi iyo carab deganaan jirtay balse hadda waxa degan dad Soomaali ah guryo qaar waa la dayactiray guryo qaarna sidoodii ay yihiin hadda sida kan aad ugu jeedaan oo kaleeto marka maasha Allah nin walba wadankiisa asiga wax u qaban karo asiga ayaa horumarsan karo asiga ayaa hoos u dhigi karo anagana waxaan rajeynaynaa inaan noqono kuwa lagu daydo insha Allah oo wadankooda horumar gaarsiiyo marka qof walba waxa jirto meel uu waligiis tagin markii looga sheekeeyo kaleeto fikrad inuu ka aamino haday noqon lahayd fikrad xun haday noqon lahayd fikrad fiican adiga maxaad ka aaminsan tahay Kismaayo si aan u ogaado fikirkaaga comment igu soo qor hadii aad ka aaminsanaan jirtay fikir xun waxaan ku leeyahay ma ahan Kismaayo sidan ay u egtahay hadii aad wax badan maqli jirtay oo laga badbadiyay xaafadan calanley waa kana maanta iga ku soo duubay waxaad nasiib u yeelatay inaad daawatid videogayga marka daawasho waxaan ku leeyahay haatanna baddi ayaan soo gaarnay xaafadan waxay xaafadaha kale kaga fiican tahay waxay leedahay bad aad iyo aad u weyn oo qurux badan maasha Allah Ilaahay ayaa ku maneystay Ilaahay u ziyaadiyo nimcadooda marka hadii aad rabtid xataa doomo waxa jiraan oo inta ka qaaday oo jasiiradaha ku keenay oo badda dhan kugu soo wareejinaya lacag yar ayaa iska siinaysa maasha Allah xataa waxa ku yaal hotel oo qurux badan oo la dhaho qiimo waaye hotelka ayaan hadana koreynaa si aad u aragtaan maasha Allah soo dhawaada nimcada dalkeena zaid ay u badan tahay balse anagana ka faa'iideysan markasto haatana meeshii aan fariisan lahayn ayaan imaanay kadib maasha Allah bisadan ay iska ordeyso kaaliska arag viewga maanta aad iyo aad ayuu u qurux badan yahay meeshan ayaan iskaga casriyeysaneynaa anagoo yacni jawi qurux badan ku jirno badii dhinac ka daawaneyno kaaliska arag magaaladii aad kor ka daawan kartid marka hadii soo dhawaada dad badan oo waxa jirto oo Kismaayo hadda joogo magaalada Kismaayo ila joogo misane aaminsan in ay Kismaayo yacni meel fiican oo la tagi karo aysan lahayn oo guryaha ku xabisan oo guryaha ku jiro oo isdhahayo meel aad aadaysid ma lahan marka meel aad aadid way leedahay adiga intii laaba qaad insha Allah wax walba way ku hagaagi doonaan marka waa kaas viewgaas quruxda badan ay haysanaa kaaliska arag waaye wax dhibaato ah kama jirto nabad waaye dadkii intii yacni joogto mise intii tagtay unba og dhanka xasiloonida iyo nabadda maasha Allah xagga nabadda kale iyo laab lagama sheekeyn karo hotelkan markii aad imaadid hadii aad doontid madulladaas ayaa iska fariisan kartaa oo iskaga shaaheyn kartaa xeebtana waa iska daawan kartaa hadii aad doontidna qaybta kore anaga fadhino ayaa iska imaan doontaa maasha Allah waxyaabo badan oo ka dhiman way jirtaa oo yacni oo u baahan in la sameeyo mise laga qabto marka insha Allah waxaasna waxaan rajeynaynaa in uu Ilaahay inoo suurtagelin doono oo mataqaanaa oo inoo qabsoomi doonaan hadii aan nahay dadka reer Kismaayo meelo badan oo waxa ku yaala Kismaayo aad iyo aad u qurux badan oo loo dalxiis tago dadka qaar aysan garaneyn ayagoo magaalada ila jooga hadana insha Allah meelahaas kulli waan soo duubi doonaa haduu Ilaahay idmo marka ka faa'iideysta haddana waxaa soo gaarnay waan soo dhaqaaqnay ama waan soo baxnay meeshaas u jeedaan masaajidkaas u jeedaan masaajidka suuq weyn ayaa la dhahaa masaajidkan waxaa dhiseen dad
ayaa dhiseen maasha allah dadkeena khayrka aad iyo aad ay u jecel yihiin masaajidkan quruxda badan ilaahay ha barakeeyo dad Soomaaliyeed ayaa dhistay inta iskugu tageen xoogooda isku geeyeen sidaas quruxda badan ayay u sameeyeen marka maasha allah ilaahay ha barakeeyo inta ka qayb qaadatay marka haatana waxaan soo gaarnay Somali Star dad badan way yaqaanaan oo yani waa meel caan ah waa halbowlaha Kismaayo qofkii Kismaayo jooga mise Kismaayo tagay Somali Star garanayay waa hal ugu marka waa meel iska caan ah dukaamada ku yaalaan wax walbo aad ka heli kartid hoteelada ku yaalaan hoteelada jiifka kuwa caadiga marka maasha allah ayaan moogaan dad badan oo waxaa jirto oo inaadaan fahmi mise fikirkoodu yahay in ay yani maalgashtaan mise wax ay ku sameystaan marka dadkaas hadii ay fiirsanayaan lacala waxaan leeyahay maasha allah meel aad iyo aad u degan waaye oo yani safe ah imow wadankaaga hooyo waaye maalgasho maasha allah ganacsigaagan insha allah wuu ku hirgeli doonaa waxyaabo badan oo ka dhiman way jirtaa waxyaabahaas badan isku day adiga i daawanayo oo fikirkaagu yahay inaad wax ka qabsato inaad ku soo kordhisid ayaan rajeynaynaa insha allah nabadana ilaahay ha noo ziyaadiyo wax uu qof kasta heli kara maaha nabada maasha allah marka ilaahay ha noo ziyaadiyo anaga intaan heysano dadkii aan heysanina ilaahay ha siiyo ayaan leeyahay maasha allah haatana meeshaan marayno waxaa waaye waxaan usoo dhawaanay shirkadda dahabshiil dad badan way garanayaan soo maaha marka waa kaas shirkadda dahabshiil ayaa maraya sorry asxaabta marka video dheer ayaa rabay inaan idiin duubo ilaa xaafadda aan ka tagayo balse way ii suurtageli weysay kaamirada iga dantay awgeed marka dhib ma lahan meelo kaleeto waxaa jirto aan idiin soo wado aan rabo inaan idiinla soo wadaago marka shirkadaas idiin muuqato weyn mise dhismahaas waa shirkadda dahabshiil videogan halkan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa meel kastoo dunida ka joogtaan waxaa idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan videoga like garey share gareyda iyo hadaa qabtid comment kusoo qor waa mahadsantihiin